igu soo dhacay inaan saaxiibna hada soo dhacay oo igu waxaan ku laba meel ku soo jeeday aan garan waayay taasina wuxuu igu yiri yaad isbedelka ma qasay taasina waxaan ku maxaa dhacay taasina wuxuu muusul saacad haadan waxa lagu bedelay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare taasina erigaas aniga maadaama aan halabu lahaa horta dambe ma gamin maxaa yeelay muusul saacad waxaan ka mid dhirta beertay in wasaaradda waxbarashada mudada ay timi waxaan ahaa macallin laakiin mudada ay joogto waxaan isaga dab qaaday maamulka dugsiga qodobada dugsiga ugu saamaynta badan oo dugsiga sare buulaadan oo isagoo yar si aad u qabcay haddana maanta 13 fasal oo saynis laabka waxa lagu dhigay waxaan rabaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka hay oo gudoomiyaha waxbarashada gobolka galbeed Xuseen Ibrahim Xasan ayaa idin maamulayaasha diyaaray waa la dalacsiyaa hayb baa la diray hayb intii joogan haddana waxaan qabtay xilka afayeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo maanta ku magacaabay dadku ay soo baxday in aniga halkaas runtii kaalmay aan tiriyo waxaan jeclaystay in aragtida cabiro gabar bilgees runtii ayaa igu dhashay igu badin maayo gabar yahow haddaan aamusnaa galabta waa baaqe waa gaaxdii maansada tixdan soo gudbinayay diiwaanka geli waa xusuus laga badguwaane waxa la yiri godaad way tagtay oo baaqay heer sare samsan guurtu loo bedelay gaar hayay qaran wasiirka madna waa laga bedelaa oo isagoo shaqaalaha dhigay oo dadka u kala tiriyay oo xanuun ka tiriyay ayaa meesha mar garan waayo waa la bedelaa marna waa lagu bedelaa marka wasaaradda waxbarashada oo xaaladda siyaasadeed ku jirtay maanta ay fahamsantay in samsan waxa loogu bedelay meel qaali oo wasaaradda maaliyadda iyo duruufta macallinka haysata duruufta gudoomiyaasha gobolada haysata xaaladaha jira ee rasmiga ah laga gudoomiyaasha gobolada ku shaqeynayaan intaas oo dhan waxa ilaahay inuu kiwa loo bedelay waxa la geeyay halkii laga jaangoeyay siyaasadda maaliyadda qaranka marka iyadoo ogaayaha waxbarashada samsan guurti wuu loo bedelay gaarayay qaranee kasi badan way ugu lahayd dhowr ku yoo tagay libgadkii iyo abaaliyada waa lagu gumeeyay billadgeesi qiimale haddaan galabta hooseeyo ogaalkay qof goorno kuma dhaafin gaajada shaqad yar hal ma taalaso dadka baa tirtay qofkii soo qornaytaan ogaalka waxa way forso tuuro soo saarto tuuro way ku taageeraysaa tuuro support kale jirtay ogaalka qof goorno kuma dhaafin gaajada gacanta iyo deeqdii waxay guru dareenkii gobonimo ku soorkii bulshada guru dareenkii go'aankii warkeedii cadda guru dareenkii hogaamiyaasha waxa qaab bil ku soo noqonayso لكن تسير فصل يوبسو تقول مايو وحاول قرقنا ما قرشة من وجهته وحلالي تصبح الله ما سماه حين بقول حياهم لكن يوم قرآن كيو كذي عدا قلوب درانكي وقع صدق رسولي أنا مركب كبرير تيتي هدينا رسولي إنه واحد يبسيط تروتي كيف هو دعاه وقولي عيانه قالت كي درقات كي بدنا قلوب درانكي واحد دراني أنت ترى خلافات الآن قدامك هو هي شقاله isku dhacayaan sidii ay wax kula binaadmiga isku soo jeedi jirtay nalaantii dibadhiisii guurtinimada muujin jirtay ayaa dalay ugu ahaa garaadkii dulqaadkii barnaamij guri dareenkii gaboodkii xorriyadda yahay guri dareenkii guuleed sinaantii bulshada guri dareenkii guuleed isfiiyaan maamulaha dugsiga sareeday guuleed sinaantii bulshada guri dareenkii ogaalkii garaxiyo malikin قلوب شقالة أنا جي إنتي إلى قدول قرب الآن يعني مثلي شخصيا أنا قدول ما كيلو كورا وأنا جي إنتي إلى قدول قرب الآن هذا نيرا دي كلها هاي طيب أنا كمان عندنا أسي الله وهلا أقول لها تلقات بدن إيه سودا باريس بدن روتي حركي بيرهيسي مركا أنا واحد رأي هذي إيه كاريوي أي روتي ترتي أنا جيت إلى الدكتور قال الله عنه أفعل بدني وأنا وأنا كجار شاي داود قرول حتى تعاق الصوت وداود أحمد فرح داود قرول حتى تعاق الصوت سلسلة مع الكوب الجار قول هي عيانه أدير بهذه يا همدان كنت هي إيده آخر بقول سلسلة الكوب الجاريد أنا حكيت لك في سؤال وحن يجي ولا أنت حدوان ولا كذا يلا بدل ما يلا
سلمان حسن حبيب مايرك الدورة هي عبد واحد كنا شكر عدل مايرك الدورة واحد لكن هذا طعام ما إذا مقطع وإلا إذا مقطع لو كان كذا بكون رسيل يا واحد سوري وفتحيته بالحمد سوري